بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين magacaygu waa cilmi Muuse Xuseen waxa taageerana haatan deegaanka Eldere ee gobolka Shabeellaha Dhexe waxa waqti dheer la soo dagaalameynay kooxaha khawaarijta ee argagixisada al-shabaab waxa guud ahaan ka sifaynay bariga gobolka Hiiraan haatanna waxa simareena gobolka Shabeellaha Dhexe waxana mahad guud u sugnaatay Allah subhanahu wa ta'ala noo fududeeyay shaqada adag ee waqtiga adag ku soo jirnay jihadka la dagaalanka argagixisada al-shabaab waxaan u mahad celinayaa wariyaasha tiifiyaasha qaranka iyo guud ahaan gudoomiyaha gobolka iyo xildhibaanada federaalka iyo kuwa Hirshabeelle maamul goboleedyada ama sida gudoomiyaasha degmooyinka oo ayagana la garab taagnaa waxa sida kale halkaan ka xusaya dadka deegaanka oo loo yaqaan ciidamada dib u xoreynta ama shacabka hadii haalaha hooyooyinkii hadii haalahayn walaalay dhalinyarada ahaa hadii haalahayn caruurtii dhammaan waa is garab taaganahay shaqaduna waa socotaa haatan waxa simareena gobolka Shabeellaha Dhexe waxaana ku sifidi doonaa gobolka Galgaduud iyo gobolka Shabeellaha Dhexe waxaana baaq u direena dadka walaalaheena ah oo diriska lala ah oo degan gobolka Bay iyo Bakool hadii degan gobolka Shabeellaha Dhexe guud ahaan waxaan rabnaa in cadawga laga sifeeyo argagixisada al-shabaab gobolka iyo Soomaaliya inteeda kaleba haatan waxaan daba taaganahay argagixisada al-shabaab iyo qorigayna isku jira ee rasaasta ugu taagan tahay oo daba taagana waa la dagaalanka argagixisada al-shabaab haatan waxa simareena Eldere waana sii wadi doonaa waxa cod soo direynaa iyo maaragtaa dadka la degan diriska lala ah oo walaalaheen ah oo Hirshabeelle degan khaasatan gobolka Shabeellaha Dhexe dadka soo jeeda waa ognahay waqti badan ay siinay oo ay dhaheen cadawgana la garab istaaga waa imaaweyseen laakiin anaga idii xoreynayna codsi waxa diganahay inaad dhibaatada naga deysaan inta dhiman adika aan la garab isteysaan oo aad la socotaan haddii aad idii xoreynaynan ana la dhibaatayno gobolkeen lagu soo duulaa la dheena qabiil anagu ma nihin dawladaan nahay haddii xilligan wax qabiil yiraahdo ma shaqeeyaan xilligan taagan bastaata qabiil ma shaqeeyo waxa shaqeeya la dagaalanka argagixisada al-shabaab cid kasta tan qorigeeda wata waa dagaalamaysa odayaashan ka harin dhalinyarada ka harin ciidankii xoogga dalka Soomaaliyeed dagaalamaya ciidankii booliska dagaalamaya ciidankii nabad sugidda dagaalamaya sirdoonka qaranka waxa dagaalamaya ciidankii asluubta Soomaaliyeed guud ahaan ciidankii qalabka sida dagaalamaya waxa taagan gudoomiyihii gobolka Hiiraan waxa taagan gudoomiyihii degmada Jalalaqsi waxa taagan gudoomiyihii degmada Maxaaseed guud ahaan waxa taagan gudoomiyihii degmada Bulbarte wax meesha ka maqan ma lahan waxa diyaar u nahay inaan dagaalano ilaa daxda ka gaarayna waa soconaynaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliya oo ayagana nagu soo dhaw xaleena idinkana soo dhaqaaqa si aan shaqada wada qabanno kuwa jooga Galgaduud ka dagaalamaan waxa leen soo dhaqaaqa dadkana shaqada hal meel ka wada qabanno hawshu waa gabagabo waxana baaq u direynaa dhammaan dadka jooga caalamka intiisa kale ama Soomaaliya oo hantida haysta in dadkan la garab istaagaan heliyo wax alla wixii awoodaan oo ayagana maaragtaa lagu la dagaalami kara khawaarijtan argagixisada al-shabaab niman wax in lagu la dagaalamay rabaan fikir in lagu la dagaalamay rabaan hub in lagu la dagaalamay awood ay rabaan wax kasta u baahayeen waxa lagu dagaalamay waa shidaal waxa lagu dagaalamay waa gaadiid waxa lagu dagaalamay waa hawaayeen raashiil cuna loo baahaya wax walba dadku dagaalamaan biyo lacab u yaraa loo baqtina marka hal dagaalamo waa dagaalamayna dadka ciidanka dhibaatada ku hay oo ciidanka jihadka ku jiro furmaha ka dagaalamaya dhaaye haqooda ka joojinayna fakrada dhaaye ayagana way qaldayiin because waxa loo baahayaa ciidankan waa ciidan dagaalamayo al-shabaab loo tababar in la diraan wayna la dirayaan jihadkana way ku jiraan nin taagan jihadka oo furunta ku jiro oo habeen iyo maalin u taagan shacabkii Soomaaliyeed oo u dhaartay in la yiraahdo xuquuqdooda laga jaran dhibaato weyn leedahay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed way mahadsan yihiin marka la mahadsan mar saddex mahadsan annagana xuquuq aaramna ma lahan waxa loo xuquuqno ah al-shabaab waddankan ka bax oo waddankan al-shabaab ka saarno oo ku raaysan waddankan oo naafigeena cunno shabaab xoolahan waddankan waxay ku cunaan awood ninka al-shabaabka ah gabadhu guursanay anagu naga rabaa waxa lagu beela anagu laga rabaa gurigu dajila anagu laga rabaa hubku ku dagaalama anagu naga rabaa waxa kale oo naga rabaa oo dheeriga waxa taa inuu guri inuu rabo baabuurta ku socon anaga naga gato waxaas wax shaqeynaa ma anaga waa iska diidnay annaga waxa diyaar u nahay in al-shabaab la dagaalano meeshii galaan wada galno hadda waqtigan oo dhamaadan aan dhimano nafteeno ilaahay baa dhimashana waxa kumay waa dhimanayna dad naga qaalisan baxay oo jaadkan ku baxay waan u soo aareynaa insha Allah haduu ilaahay yiraahdo dad badan oo qaaliya ayagana ka dili doonaa waa ka baabay doonaa al-shabaab inta uu naga dilay ayagana waxay galayaan janni galayaan intuu naga dhaawacay ilaahay baa caafimaad degdeg siinaya caafimaad degdeg iskaleeyaan الله سبحانه وتعالى هؤلاء حرس أنت لما تقول لما تجهاد كان الله هؤلاء حرس أنت لما تجهاد كان أقولتي مارتها الشاب ذاتك شاب يقول توبين يمارتها ويكي ولا أنت دقان قبل أن دقان أيجنا إله سبحانه وتعالى خير كرون إله وكان بدل غير قبيله يقول بدله
marka dhalinyarooy waa iska rab taagannahay meel kasta aan joogno hadaa qurbaha joogno hadaa dalka joogno hadaa jihaadka ku jirnaba ama hadaana ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo hadaana shacabka xaqu dirarka ee deegaan dib u xoreynta guud ahaan waa iska rab taagannahay waan wada dagaalamaynaa waxa hogaaminaya saraakiisha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo ayagana jihaadka qayb ka waxa hogaaminaya saraakiishii booliska Soomaaliyeed iyo waxa hogaaminaya madaxdii ama hadii xildhibaanaha laan iyo hadii gudoomiyaha guud ahaan madaxdii iska rabsatay waxa kale in halkan laga cusub baahan warbaahinta qaranka iyo warbaahinada wariyaasha guud